Assalaamu calaykum dhammaan mucaashaqiinta jecel eFootball ama Konami. Maanta waxaan idin wadaa update cusub oo aad markaasi ku farxi doonto haddii aad tahay mucaashaqiinta markaasi daneeya applicationka eFootball ama Konami. Okay, intaan muuqaalkeena gudaha u sii gelin, maanta waxaan idinka dabadgeyn doonaa update aad iyo aad ku cajab gelin doono. Intaan barnaamijkeena aan gudaha u sii gelin, subscribe ii saar, muuqaalkana like saar oo markaasi muuqaalkan u share garay saaxiibadaada si markaasi aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adigoo kaleeto. Waayahay, maantay update cusub baan idin wadaa, xan badan baan idinka dabageyn doonaa. Okay, ila soco. Haddaba muuqaalka haddii aad like saarin weli like inoo saar. Saa ogtihiinba qaybtan oo 800 oo milyan markaasi shirkadda Konami ay u dabaaldegaysay waxaa keliya ka dhiman hal maalin iyo 8 saac. waa la qaadi doonaa maalinta Khamiista ah. waxyaabo badan oo markaasi lagu soo bedeli doono ayaa jiro. asxaabta badankooda ma ogo, aniga ayaa ka dabageyn doono. Okay, qaybtan oo 8 milyan oo markaasi shirkadda 800 milyan shirkadda ay u dabaaldegayso waa la qaadi doonaa maalinta Khamiista ah. hal maalin iyo 8 saacad ayaa soo hirtay. Okay, waxaan isla eegi doonaa qaybtan kale oo markaasi Iniesta ku jiro oo ayadana markaasi hal maalin iyo 8 saacadood ay u soo hartay oo maalinta Khamiista ah ayadana la qaadi doona. maxaa laga soo bedeli doonaa oo maxaa laga dhigi doonaa oo maxaa la keeni doonaa ayaa qof walba isweydiinaya. waxyaabo badan oo shirkadda markaasi ay sheegtay inay keeni doonto oo dhalinyaradana ay markaasi hadal hayaan baa jirto oo markaasi la hadal hayo. waxaa ka mid ah play of the week-yada oo markaasi maalinta Khamiista ah la keeni doono. oo haddii aan ka hormarno intaas ayaan ku hormari doonaa oo play of the week-yada Khamiista la keeni doono ayaan ku hormaraynaa. Okay, haddii aan weli subscribe noo saarin waan ku xasuusinayaa oo subscribe noo soo saar. Okay, play of the week-yada la keeni doono waxaa ka mid ah Harry Kane iyo Petri iyo raggan oo halkan uga jeedo Williams. raggan baa la keeni doonaa ayay la dhaheen. Okay, waxyaabo kale ayaa jiro raggan oo halkan uga jeedo oo markaasi goolasha ay dhaliyeen oo Lionel Messi oo 3 gool markaas dhaliyay ayaa la keeni doonaa sida markaasi la hadalayo. iyo dhalinyaradan kale oo u jeedo ayaa markaasi la soo wadaa oo Harry Kane markaasi 3 gool asina markaasi Bayern Munich u dhaliyay ayaa Khamiista la keeni doonaa sida la sheegayo oo hadda wararka aan naga soo gaaray. saad u jeedaan qofkan ayaa markaasi la keeni doonaa iyo qofkan kaleeto dhalinyarada badan ayaa markaasi la keeni doonaa oo Khamiista la soo wadaa sida markaasi la sheegayo. Ganes ayaa markaasi Liverpool ayadana loo keeni doonaa. waa sida hadda shaashada aad ka arkaysaan halkan ayaan idin soo saarayaa dhammaantoodii mid mid ayaan markaasi idinku soo saaraa. Khamiista waxyaabaha markaasi la filayo in la keeno oo geemka lagu soo kordhiyo intaan ayaa markaasi la keeni doonaa. qaybta kale markii FIFA World Cup la qaado waxaa la keeni doonaa Black Friday ee markaasi la keeni doono oo firiyo badan aad ku heli doonto. waxaa la hadlayaa qaybtan Halloween markaasi aad ka heli doonto firiyo badan iyo koonisyo badan, trading, GB iyo waxyaabo badan oo ku heli doonto. qaybta kaleeto waxaa waaye aydugyadana waxaa la keeni doonaa raggan oo aad halkaas uga jeedo oo u horeeyo Maradona iyo Buffon. dad badan ayaa markaasi la keeni doonaa. qaybtan kaleeto waxaa leeyahay waa la soo celin doonaa firigii oo 13 beri uu soconayay. firiyadan haddii aad hore ugu faa'iideysan haddaba waa la soo celin doonaa. hadda ka faa'iideyso wasoo haddii aadan hore ugu qadeynin hadda ayaa la soo celin doonaa sida la sheegayo. update-kaas ayaan jeclaystay inaan idinka dabageeyo aan markaasi idinla wadaago. haddii aad intaan la soo gaartay muuqaalkan like saar, channelkana subscribe dheh. aad u mahadsantihiin.